kusoo dhawow channelkeena Xogsida Production. Maanta waxaynu ka hadli doonaa minxada waddanka Turkiga. Waxaan ka cudur daaranayaa waxaan rabay inaan soo gudbiyo qaabka loo xareeyo ama qaabka scholarshipka waddanka Turkiga loo xareysto, balse cillad farsamo oo soo wajahday qaabkii wuxuu duubayay iyo cillad soo wajahday computerkii baanan soo duubin. insha Allah waxaan soo raacin doonaa link website kale oo yar saaxiibkii leeyahay xareynaya ama sharaxaya qaabka loo xareeyo. linkaasi raaca isaga soo daawada saa loo xareynayo. Anna waxaan siin doonaa waxyaabo fara badan oo information fara badan oo kaa caawinaya inaad xareysato scholarshipka Turkiga. Scholarshipka Turkiga waxaa la bilaabay ama dowladdu ay aasaastay ama dhidibada loo taagay hadba saad u garanayso bilowgii 2012. minxadan waxaa ka qalin jabiya intii 2000 iyo u dhaxaysay ilaa maanta, ama intii minxadani furnayd waxaa ka qalin jabiyay arday u dhaxaysa 18,000 ilaa 19,000 oo qof. weliba way ka badan kartaa ilaa 20,000 qof gaadhaysa, laakiin sidaan markaan akhriyay ama macluumaadka baadhayay aan indhaha soo mariyay 18,000 ilaa 19,000 oo qof inta u dhaxaysa ayaa ka qalin jabiyay. sanadkiiba minxadan waxay aqbashaa arday ku dhow celcelis ahaan 5,000 oo qof ay sanadwalba dowladda Turkiga u qaadataa oo ay u qaadataa inay siiso deeq waxbarasho waddankeedana ay keentaa. waxaana ardaydaas loo kala qaybiyaa jaamacadaha kala duwan ee ku yaala waddanka Turkiga. sanad kasta ardayda ay qaadato waxay u qaybisaa 3 qaybood. 3 qaybood baa ugu waaweyn. waa bachelor degree, qofka qaadanaya da'diisu waa inay ka yar tahay 21 sano, waa inuu ka yaryahay qofkaasi. example waa inuu dhashay qofkaasi 1 January 2001 wixii ka dambeeyay waa inuu dhashay. darajada qofkaasi la qaadanayo ama shuruudaha ku xidhan waxaa ka mid ah qofkaasi bachelor degree-ga darajadiisu inay shahaadadiisa uu iskuulka ka qaatay inay tahay 70% ama percentage ahaan boqolleyda wax loo cabiray inay 70 tahay. sidoo kale qof waxay qaadataa oo talabaad ah master degree-ga. master degree-ga qofka ay u qaadanayso da'diisu waa inay ka yar tahay ama ka weyn tahay u dhaxaysa inta 30 sano waa inay u dhaxaysaa. qof da'diisu 30 sano ka weyn tahay ma qaadato. waa inay da'diisu 30 sano ka yar tahay. waa in qofku uu dhashay celcelis ahaan 1990 1 January 1990 waa inuu qof u dhashay. sidoo kale qofkan masterta ah ama master degree-ga ah shahaadadiisa laga rabaa isaga waxa weeye shahaado ah 75%, halka kii hore bachelor degree-ga laga rabay 70%. kan darajada laga rabaa waa 75%, waa masterta. PhD-ga waa qaybta saddexaad ay qaadato minxadan Turkiga ama minxada Turkiga scholarship waddanka Turkiga. qofkaasi waxa weeye in da ahaan uu 35 sano oo ugu weynaan uu yahay ama da'diisa ugu weyn ay tahay celcelis ahaan 35 sano. qofkani waa inuu dhashay hilaadii ama waqti ku beegan ku qiyaasi karno 1985 intii ka dambeysay waa inuu dhashay. qofkan waa in darajadiisa isna ay tahay shahaadada uu sitaa uu mastertiisa soo diyaariyay. shahaadadiisa mastertu waa inay tahay 75%. waxyaabaha kale ee dheeraadka waxaa ka mid ah qofka caafimaadka doonaya isaga darajadiisu waa inay ahaataa 90% oo qofka caafimaadka raba. shuruudaha marka la xareysanayo la iska rabo ee la iska doonayo shuruudaha qofka loo dhigo waxaa ka mid ah 1 qofku inuu haysto passport waa jawaas safar waad garanaysaan. waa dhalasho ama waa waxay qofku ku safriyay ama national ID. haddii aanu qofku waxay xareysan karaa haddaanu passport lahayn. laakiin waxay uma badna qof aan passport lahayn in la qaato. 5,000 la qaadanaya ama sanadkiiba 2-3 qof laga qaataa waxaan passport lahayn oo marka dambe gadaal passport ka soo qaatay laakiin la aqbalaa marka hore. laakiin shuruudaha qofka la qaadanayo iyo qofka la aqbalayo waxaa ka mid ah passport. markaad xareysanaysid passport koo lagu weydiinaya.
talabaad waa warqad loo yaqaano transcriptor. warqadaas transcriptorka waxa weeye waa warqad ka kooban transcriptionkaas waxa weeye warqad ka kooban 4 galaas aad soo dhigatay iskuulkii. tusaale waa form 1kii, form 2kii, form 3kii iyo form 4kii. tusaale form 4ka oo kale qofka baa qaadanaya bachelor degree-ga, shahaadadii form 4ka uu haystaa waa kan ku xareynaya. laakiin waxaa laga rabaa 3 cadeymood oo kale ah inuu form 1kii, form 2kii iyo form 3kii soo dhigtay. waa in warqad cadeynaysa imtixaanaadkiisa wixiisba ay ku yaalaan la helaa. wax kale uu qofku xareyn karaa haddii aanu haysan shahaado oo sanadkaa baxayo, wuxuu odhanayaa meesha lagu xareynayo wuxuu gelinayaa ardayda sanadkan baxaysa ayaan ahay. waa uu sii xareysan karayaa ilaa aqbalo iyo ilaa la aqbalina. waxaa ka saacidaya shuruudaha kale inuu buuxiyey. iyo qofka waxyaabaha kale laga rabo waxa kamid shahaadadaasi uu ku baxayo dibloma. haddii jirto diblomooyin waa laga rabaa qofka. waxyaabaha talada aan usoo jeedinaya si dheeraadka uu barnaamijkan ku weydiinayo waxaa kamid ah shahaadooyin dheeraada qofku inuu wato, ama meel ka soo baxo ha ka qaato ICT oo kale ha soo dhigto, ama meel oo computerka oo kale meelaha ka soo dhigto, ama meel English oo kale ha ka soo dhigto, ama luqad ama wax kale. tusaale shahaado sharaf oo kale meel ha ka qaato, ama shahaado uu caawin oo cid uu caawiyay ama uu ku mutaystay ama urur bulsho uu kasoo shaqeeyay ha ka qaato shahaado. waxaasoo dhan waa inuu sidoo kale ka dhigaa PDF oo PDF intuu bedelo uu ku xareystaa. waxyaabaha kale dheeraadka markaasi looga sii baahan yahay waa inuu qofku sii akhriyo haddii jira wax kaloo dheeraada uu qofku ku xareeyo. lacagta uu qofka digriga qaato ama qarashaadka aadan u nimaadno, marka ugu horeysa qofka kusoo baxo minxadan waa loo soo sheego waxa loo qabanaya waqtigaas interviewga ku gelaya. interviewga markuu galo oo interviewga dhameeyo, waa haddii markaa mar labaad interviewga uu kusoo baxo, qaar baa dadka interviewga ku hara oo wixii marka hore ku xareeyeen wax ka duwan sheega. haddii qofku interviewga kusoo baxo, noloshiisa waa la qabaa. hadday noqoto tigidhka uu diyaaradda uu ku tegayo, hadday noqoto caafimaadkiisa, oo hadday noqoto waxyaabaha muhiimka nolosha asaasiga ah. qofka digriga ah wuxuu qaadanayaa lacag ah 700 oo Turkish lira ah. waa qofka digriga ama bachelor digriga lacagta uu qaadanayo bishii. kadib qofkaasi wuxuu degi karaa oo si bilaash ugu noolaan karaa hoyga jaamacadda, ama guri kamid ah guryaha jaamacadda ardayda la siiyo, ama qof la wadaago oo la dego, ama 2 qof, ama kaligiiba ha dego. waa guri marba guriga nasiibkiisa ugu soo beeganto. qofka haddaanu rabina isaga ayaa isdabaraya, 700 la siiyey isku dabaraya, banaanka ayuu naga baxayaa, jaamacadda guri buu karaysanaya. inta marka lagaga soo tago bachelor degree, master degree isna waxaa la siiyaa 950 liro oo lacagta Turkiga ah. isaga ayaana isku dabaraya noloshiisa. waxyaabaha fara badan ee kale ee caafimaadkiisa, insurance hadday noqoto nooc kasta oo waxbarashadiisa, hoygiisa waa la qabaa, dowladda ayaa bixinaysa. sidoo kale PhD-ga qofka ah isna waxaa la siinayaa 1400 liro oo lacagta Turkish lirada. tigirkana qofka waa la qabaa markuu wadankiisa ka tegayo iyo markuu soo noqonayo. go-aan baag ah baa loo jaraya qofka oo dhow markuu soo noqonayo uu soo dhamaysto waxbarashadiisa 4 sano ama 3 sano ama 5 sano uu soo noqonayo iyo marka uu tegayo qofku. caafimaad ahaanna qofka waa la qabaa, deegaan ahaan waa la qabaa. mixnadana sanad walba waxaa la furaa January 1 marmarka qaar 15 kulli mar walba waxaa la furaa bisha January sanad walba, waxaana xidhantaa bisha February 20 inta badan bisha February 20 xidhantaa. hadda minxadan way